dhammaantiinba waan idin salaamay waxaan idinku salaamayaa salaanteena qaaliga islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaa jirtay su'aal hadda ka hor la soo weydiiyay muddo laga jooga 10 bilood aad baan idin raali gelinayaa inaan maanta ka soo jawaabo su'aashan oo la soo weydiiyay sidoo kale mashquulka igu batay yaan la qaban asxaabteeda waan idin raali gelinayaa maanta waxaynu ka warrami doonaa su'aashii 10 bilood ka horna la soo weydiiyay arday kamid ah ardayda marka aad uga faa'iideysta casharadan soo dhignay YouTube-ka ayaa wuxuu soo qoray su'aashan 10 bilood ka hor soo qoray maanta marka su'aashii dib uga jawaabi doonaa aad baan kaaga raali gelinaynaa ustaad noo soo sheeg daawooyinka uu qori karo qofka nursing-ka ay su'aashu dhignay daawooyinka uu marka qori karo qofka marka nursing-ka ay daawooyin qori kara jira iyo kuwa marka aan qori karayn asxaabtayda waa lagu kala duwan yahay wadamada qaar ba xitaa nursing-ku aan qori karaynin kaarjabin ama qadda jiminde ama xumad jiminde aanu qori karin wax been relief xitaa qori karaynin wadamada qaar buu qori karaa qofka nursing-ka oo si uu dawooyinkii kale aanu qori karaynin marka wali uu kala duwan yahay si guud 4 group oo daawo ah kuwaas oo nursing-ku qori karo ayaynu ka hadli doonaa maanta muuqaalkan kaga hadli doonaa 4ta group ay daawooyinka kamid ah qofka nursing-ka wax buu ka qori karaa marka xitaa ku qori karaa insha Allah idin soo bandhigi doona groupka koobaad waxa beer reference baa la isku dhahaa kuwa kaarjiminta la halmaala beer reference baa la isku dhahaa sida waxa kamid ah acetaminophen oo ah paracetamol ibuprofen oo ah NSAIDs-ka kamid ah iyaduna nooc antipain-ka kamid ah iyo markaa naproxen oo iyaduna markaa antipain-ka kamid ah way groupka labaad wax ka qori karaan qofka nursing-ku waxa kamid ah antibiotics-ka saddex dawo ay qori karayaan sida penicillin-ka ama penicillin V-ga iyo amoxicillin-ka iyo erythromycin dhammaan marka saddexda daawada iyaguna way qori karayaan groupka saddexaad waxa loo yaqaan antihistamine oo groupka loo yaqaan anti allergic oo dadku kale marka allergic oo kale ku kacaan ama cuncun kale hal daawo ugu caansan oo qofka marka nurse-ka uu siin kara oo loratadine groupka afraad waxa la vitamins-ka and supplements-ka iyagana wuxuu siin karaa qofku wixii marka vitamina iyo supplements-ka uu bixin karaa qofka nursing-ka waxaanu bixin karaa multivitamins-ka kale uu siin karaa multivitamins and minerals baad raaciyaan qofku bixin karaa iyo vitamin D-gana marka uu siin karaa aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ula socoteen waxaan rajaynayaa aad wax badan ka faahateen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh